wuxuu yiri hooyadayna waxay dhimato ay ka daba dhimato muddo aan kala fogeyn bay dhimato yiri sida caadiga ilmaha hadii hooyadood iyo aabahood ay dhintaan waxaa loo geeyaa habaryar amba eedo amba ayeeyo intii noolaa qof kamida loo geeyaa wuxuu yiri waxaana loo geeyo eedadayna waxay ahayd qof xoolaha rataa oo iska guurto oo aan meel deganeyn wuxuu yiri anagu waxaan ahaynuu yiri eedana waxay haysato laba ciyaala annagana waxaan ahaynuu yiri laba kaleetood maalin maalmaha kamida wuxuu yiri waxaa la raray xoolihii oo waxaan tagnay meel fog oo mii ah wadankuna wuxuu ahaa yiri dhul roobaad oo qabow ah wuxuu yiri guri nooma dhisnayn oo wuxuu dhahay waqtigaas mar dhawaan meesha degnay jaanis uma helin oo dhahay inaan guriga dhisano balse wuxuu dhahay waxaana la jiifiyay habeenada kamida meel qabowga oo geed hoostiisa la jiifiyay yiri ma haysano yiri wax aad u fiican aba hub fiican oo dhaxanta naga celiyo balse wuxuu yiri waxaan arkay yiri qiso cajiib qisadu wuxuu yiri aad bay wuxuu yiri cajiib u aheeday inkastoo da'daynana ay yareedo dhahay oo wiilka iga yarna wuxuu yiri oo ahaa 5 sano jir aniguna aan ahaa 7 jir oo aad aanan u caqli badnayn waxaan meeshii iga yimidayna aanan garanayn balse wuxuu yiri waxaana la jiifiyay meel geed hoostiisa oo aad u qabow badan afar cunugaan ahaynay afartaynaba salliyaana loo fidiyo yiri saligi markii loo fidiyo dhaawaa jiifsanay salli kaloon aad wuxuu dhahay dhaxanta u celinayna korkaana laga saaray wuxuu dhahay waxaa imaada roob qabow badan roobkii markuu imaado wuxuu yiri wuu nagu dul da'ay waa iska garanaysiin meel aan guri lahayn oo maxaa la dhihi jiray wax la dugsado fiican aan lahayn iyo ciyaal yaryariisa waxa waaye markaas qof walbo ay naftaada dabaro laakiin hadii ilmuhu ay aad u yaryihiin si naftooda u dabartaan ma garanayaan wuxuu yiri qof walbo oo waayeelahayo xaafada joogan wuxuu dhahay meeshiisu isku celiyay annagana wuxuu dhahay meeshayniyaan ku jirnay afartayni balse wuxuu dhahay qabow aad u daranaa yimiday wiilkii iga yaraayo dhahay ooyay oo qabowgu u adkaysan waayay oo dharkoo wada ku qoyay inkastoo wuxuu yiri dhar aad u fiican oo san wadan oo qabowga ka celin karo balse wuxuu yiri ilaahay amarkiisoo dhahay waxaa noo yimiday qof aanan garanaynin oo nuhujiyay hoostana na geliyay waayaabuu dhahay balse dugaal aad u fiicanaan helnay waxaan dareemayay yiri in qof ay ii imaaday oo qof ay baalka na gelisay anigoon aadna u fahansanayn oo dhahay inay qofkaas heerkay tahay maxaa la dhihi jiray laakiin aan dareensanahay dadka guriga jooga qof kamida inaysan ahayn qofkaas wuxuu yiri ma qoynayn roobna wuxuu yiri kuma diin baalkeena gelisuu yiri waxaana helnay kuleyl aad u fiican iyo meel dugaala oo wuxuu dhahay ilaahay noo soo diray meeshayna wuxuu dhahay roobkii yaa qayoostay roobka haduu qayoosto wuxuu nagama tegin oo weynala sii joogtay mar walbana wuxuu dhahay hoosteedayna soo gelinayso dhaqteedayna soo gelinaysay balse wuxuu yiri waagiyaa baryay waagi markuu baryo dhahay qofkii oo waagi saas uu baryo dhahay oo xoogaa dhulku soo cadaaday qofkii halkaas uu ku dhaqaaqo yiri qofkii waa naga dhaqaaqo yiri markuu naga dhaqaaqa dib oo noo soo fiirshaa yiri mar kastaba dib uu noo soo fiirshaa qofkii dib uu noo soo fiirshaa hadana dib uu noo soo fiirshaa ani waan fiiriyo yiri balse aniga waxba kama garanayno qofkay tahay qofkina sidaas aan ku weyno dhahay waagina sidaas uu ku bariyay oo dadkii yaa soo kackaco yiri dadkii markuu soo kacay anagu waxna cid uma sheegin oo dhahay oo qof uma sheegin waan iska soo baxnay waxaan si gogashi ka soo baxnay oo anagoo qallalan oo roobna taabanin dadkii way yaabeen waxay yireen sidee suurtagal u tahay roobka caawa da'ay oo ciyaalkan ay qoynin wuxuu dhahay waa la iska joogay oo wuxuu dhahay shaaxayni waxaynayaan karsanay xoolihiyaa la kala raacay guriyaana la dhiso dhahay guriga markii la dhisay anaga qaasatan afartayna cunugu dhahay waxaana loo dhisay guri aqal Soomaaliya oo wuxuu dhahay anaga afartayna naloo kugu tala galay waa iska fahmaysiin guri yar oo afar cunug la seexinayo
kulli dad kale ma qaadaya sidaan filay laakiin sow ii sheeg wuxuu dhahay afartayna nala kugu talagalay gurigina habeenkii waa seexano dhahay oo habeenay noo noqotay balse sidii oo kale aan aragno wuxuu dhahay habeenkii markii la gaaray qorraxdii dhacdo yiri oo maqribka laga baxo dhahay haddana sidii oo kale qofkii yaa noogu imaaday oo qofkii anaka habeen hore dhabtana gelisaa noogu imaado yiri allahu akbar hooyo si kasta kuma safrayso si kasta hooyo kuma safrayso hooyo waa hooyo ilaahay waxaan ka baryayaa qoftii hooyadeed joogtana inuu ilaahay jannatul firdaws ugu waraabsho caafimaad badan uu siiyo qofkii oo hooyadiis dhimatana ay hooyadiis jannatul firdaws ilaahay ugu waraabsho maxaa la dhihi jiray ilaahayna jannadu ugu bishaareeyo wuxuu yiri habeenkii baalkaana la geliyay balse waxay war igu tiro yiri aniga may garanaysaa waxaan iroo yiri maya aniga waxaan ahaa hooyada wuxuu yiri waa naxay waxay ila naqato yiri wax fila waaye aad baan u naxay yiri because hooyaday aniga waa dhimatay yiri oo waxaan ku ogaa inay dhimatay aabahayna wuxuu yiri wuu dhintay waxay dhabtayna geliso yiri oo meeshayniyaan iskaga jirnay waagu hadduu bariyo sida si lamid uu yiri halka qorraxdu kas u dhacdo ay u dhaqaaqdo yiri qofkii way dhaqaaqdo yiri markay saas u sii dhaqaaqdo yiri waxba waa weynay saddex marna dib ay noo soo fiirisay sideeyaana ku weynay sida si lamid wuxuu yiri waa laga kacay oo xoolihiya la raaco waa iska baxnay waxaan ku soo naqano gurigii goor galab gaaba oo waqtigu uu aad u dhow yahay maqrib cuntadeeniyaan cuno yiri oo gurigeenniyaan ku laabanay gurigeenni markaan jiifno yiri sida si lamid way noo soo timido yiri waxayna i tiro yiri ma i garanaysaa waxaan iroo yiri maya ma ku garanayo waxay i tiro yiri waxaan ahaa hooyada wuxuu yiri aad baan u qoslay aad baan u farxay yiri farxad aan wajigayga saarnay marka hore aan farxay wuxuu yiri waana rumaysan waayay waxay tiro yiri hooyada ahaan ahay mar kale igu celiso markaas waxaan dhahay yiri haye wuxuu waqtigaygu aad uma weynayn oo waa yaray balse waxay ugu tiro yiri hooyada maxaad ku ogeeda oo tilmaama laakiin wuxuu yiri hooyaday markay dhimanayso yiri faray ka go'needay oo far laga gooyo yiri ka go'day waqti yacni andhaweyn waxaan iroo yiri hooyaday maya waxba kuma ogeyn marka wuxuu yiri waxaan ahaa 7 jir aad uma caqli badni ma weyni oo dhalin badan ma haysto laakiin calaamadihii hooyaday ay leedahay waxba kama garanayo wixii i tiro yiri aniga waxaan ahaa hooyada fartaas iga go'an muujeedahay ilaahay saa inuu yiraahdo waqti hebel ayaa yaamba iga goysay waxaana ahaa hooyada waxa kula joogana waa hooyada cidna ma arkay sida hooyo ii seexo wuxuu yiri sidii aan ku hurdnay sidii markaan ku hurdno oon iska seexano yiri subaxii waa soo kacnay balse haddaan soo kacnay wuxuu yiri baalkii aan ku jirnaa wax dhibaato ma qabno dhahay balse subaxii markay dhaqaaqa tagto waa ku dhagay waxaan iruu yiri hooyo ha naga tagin hooyo ha naga tagin markaan iruu wuxuu yiri meesha waxba waa ka waayay maalin kalena hooyaday dib uma sii arkin balse arrintaas murugada leh aan la kulmay maxay micnaheedu tahay ma ii fasiri kartaa aniga waxaan u sheegay qof cilmi yaqaan mihi qof maxaa la dhihi jiray diinta aad u yaqaan maahi balse sheekadaas culimada la kaasho ayaga wax kaaga sheegi doono waadna mahadsantihiin horta hooyo waa hooyo si kasto hooyo waa hooyo dadaa waxaa ku dhahay hooyaday aniga waxba iima qaban hooyaday anoo yaray i dhigtay hooyaday saanay ahayd balse hooyo waa hooyo 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 waaye hadday ku dhigtay iyo hadday ku soo korisay iyo hadday si kasto hooyada waa hooyada hooyadu ma ahan wax inuu yiri hooyo ha naga tagin hooyo ha naga tagin markaan inuu wuxuu yiri meesha waxba waa ka waayay maalin kalena hooyaday dib uma sii arkin balse arrintaas murugada leh aan la kulmay maxay micnaheedu tahay ma ii fasiri kartaa aniga waxaan u sheegay qof cilmi yaqaan mihi qof maxaa la dhihi jiray diinta aad u yaqaan maahi balse sheekadaas culimada la kaasho ayaga wax kaaga sheegi doono waadna mahadsantihiin
horta hooyo waa hooyo si kasto hooyo waa hooyo dadaa waxaa ku dhahaya hooyaday aniga waxba iima qaban hooyaday anoo yaray i dhigtay hooyaday saanay ahada balse hooyo waa hooyo 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 waaye hadday ku dhigtay iyo hadday ku soo korisay iyo hadday si kasto hooyada waa hooyada hooyadu ma ahan wax bini aadamka lala simi karo waa meeshii laga soo beermay waa meeshaan anagu ka soo beerno ilaahay nagu dhex beeray ilaahayna waxaan ka baryayaa hooyayaasheena inuu jannada ka waraabiyo waadna salaamantiin dhammaantiina waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh